بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bisha Ramadaan 1441 hijriga oo ku aadan 22 bisha May 2020 waxaan kelimadeena baraarujinta bulshada aan ku soo qaadanaynaa حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حديث كان وحاورنا يا شيخينك أما إمام مسلم إمام بخاري سوى الجرأة وحونا كمد يهي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ummadiisa uga digayaa 7 wax halaagta oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ku bilaabay ashirku billaah, in ilaahay wax lala wadaajiyo, in allah subxaanahu wa tacaala lala wadaajiyo amba shariik loo yeelo amba nin la fil ah. allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisu wuxuu ku leeyahay: falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun. falaa tajcaluu lilaah, allaha u yeelina, allaha u samaynina, falaa tajcaluu lilaahi andaadan kuwa la fil ah, kuwa oo nid la ah oo la fil ah allaha u samaynina, wa antum taclamuuna, idinkoo og allah subxaanahu wa tacaala inuu khalqigoo dhan abuuray, khalqigoo dhan macbuud oo u yahay, khalqigoo dhan yacni tarbiyeeyey. marka ha u yeelina yacni nid. sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka cabdullaahi ibni cabbaas oo warinaya shirkiga markii la weydiiyey an tajcaluu lilaahi niddan, an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak, inaad allaah u samayso yacni mid la fil ah oo yacni cibaadada allah keliya aadan u khaas yeelin, oo shariik yacni nin oo la barbar caabuda allah aad samayso waay. an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqaka, allah asigoo ka abuuray. kaasi wuxuu ahaa 7 nabiga uu ku tilmaamay muubiqaadka. muubiqaad waa muhlikaad, micna almuubiqaad waa almuhlikaat. اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات واي، هو هلاجة صاحب كذا هلاجة نارتا كتورة واي. ما نمبر كوكواد وحوها تضبط الشرك بالله، إن الله سبحانه وتعالى لا شريك له. نمبر كلابات وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، in qof bani aadana aad disho waxaa lagu xijiyey gaalnimo. lamarka koowaad oo ahaa ashirku billaah
waxaa laba laga dhigay waqatlu nafsi alatii xarama allaahu ilaa bilxaq in yacnii la dilo naf ilaahay xarimay dilkeeda naf in lagu dilo ma ogiye xaq sida qisaas oo kale marka allah subxaanahu wa tacaala waa mamnuucay in naf si xaq darro ah loo dilo si xaq darro ah in loo dilo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mamnuucay allah wuxuu leeyahay walaa taqtulu الnafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaq waman qatala madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan falaa yasrif fi lqatl inahu kaana mansuura lama ogola naf bani aadam in si xaq darro ah loo dilo lambarka saddexaad waa aklu riba yacni in ribo la cuno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xarimay oo rasuulkiisa uu xarimay allah wuxuu baneeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu baneeyey wa axalla allaahu lbayca wa xarama ariba allah wuxuu baneeyey oo xalaal ka dhigay ganacsiga iyo tijaarada wuxuu mamnuucay ou xaaraantinimeeyey ribada in la cunana waxay ka mid tahay muubiqaadka toddobada oo nebiga uu ku tilmaamay inay yihiin muubiqaad ay ilmuhlikaad kuwa wax halaaga oo saaxiibkooda halaaga oo naarta u horseeda qodobka afaraad aklu maalulyatiim in xoolaha qofka agoonta ah xoolihiisa la cuno yatiimka qofka bini aadamka waxaa loo yaqaanaa man faqada abaahu ninkii aabbihiisa waayey amba aabbihiisa ka dhintay ayaa la yidhaahdaa yatiimkaas xoolihiisa in lagu tacdiyo oo la cuno allah subxaanahu wa tacaala waa xarim walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan xataa yabluga ashuddahu ilaa aad adeegiisa uu ka gaaro xataa qaangaar keliya ma ah qaangaar kadib yacni in uu gaaro ad adeegiisa markaas kadib oo xoolihiisa lagu wareejinaayo ilaa uu ka gaaro waa suuratu lancaam aayadda 152 وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلهي سبحانه وتعالى لبدا والد إلا وناجيو قرابدا إلا وناجيو يتيم كان إلا وناجيو شيء إن يعني حوليس اللي عنو أو اللي تعديو أي ممنوعة وتولى يوم الزحف وقضب كاللحاد وتولى إلا جيستو oo dabada la jeediyo yowma zaxfi maalinka gurguurashada oo cadowga loo gurguuranayo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu falaa tuwalluuhum ladbaara ilaahay subxaanahu wa tacaala asoo dhawaaqaya mu'miniinay haddii aada la kulantaan gaalada zaxfan yacni si gurguurd ah oo yani amba socashada zaxfan ay ilmashyi waay socodka ciidamada waay zaxfan ay mashyi ljeish falaa tuwalluu hum ladbaara dhabarka ha u jeedinina ha ka cararina waman ninkii dhabarka jeediyey maalinkaas ilaa mutaxarifan lilqitaal nin dagaal u xeelaysanayo ma ogiye oo mutaxayizan u dunmaayo u wareegayo ilaa fi'atin koox oo mu'miniin ahoo dhinac ka dagaalamaysa ma ogiye ninkii maalinkaa carara faqad baa'a biqadabin min allaahi wa ma'waahu jahannamu wa bi'sa almasiir waciid ayaa ka soo arooray qodobka ugu dambeeya waa qadfu lmuxsanaati almu'minaat gabdhaha amba haweenka muxsanaadka oo dhoorsan
oo ilaahay dhowray oo mu'minaadka ah oo gaafilaadka ah waxyaabaha lagu ridaayo cayda lagu ridaayo gaafilka ah in yacni la qadfo oo zino lagu tuuro ayaa ka mid ah yacni muubiqaadka amba waxyaabaha yacni qofka halaagaya maanta oo aan kelimadeena baraarujinta bulshada ku soo qaadanay xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ijtanibuu asabca almuubiqaat oo aan ku sheegnay nabiga uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey kadib ashirku billaah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات تضبدا وحلاقة أن مانتا كسو قادناي كلمة دينا براروجين تبولشدا هل كان أيامكو أكينينا أم بأنكو سمينا وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك